كويس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan bilaabi doonaa maanta hadii la yiraahdo chapter 6 oo galaaska form 1 ka ah aan yiraahdo galaaska form 2 ga ah oo magaciisa la yiraahdo chapter-ka chemical reaction and equations sida uu chapter-kani uu ku bilaabi doono wuxuu noqonayaa laba qaybood oo waaweyn wuxuu kala bixi doonaa qayb ka hadasha chemical reactionska iyo noocyadooda iyo sidoo kale qayb talabaad oo ka hadli doonta equationska iyo siyaabaha loo qoro ama sida loo miisaamo ama sida statuskeeda loo sheego solid liquid iyo gaska ay tahay waxyaabahaas oo dhan iyo sida loo miisaamo waxyaabahaas uu ka hadli doonaa chapter-ku waxaanu horeysiin doonaa markaa oo aynu dhinac isku marinaa inta chemical reactionska ka hadlaysa ayaabaynu dhinac isku marin doonaa markaa qaybtaas aynu horeysiinayna objectiveska cashirkeena maanta aynu ka leenahay ama fariinta uu gudbinayaa waxa weeyaan laba fariimood oo muhiim ah oo inaad fahanto ay tahay fariinta koobaad waxa weeyaan inaad kala garan karto typeska ay leeyihiin ama qaybaha ay leeyihiin chemical reactionsku objectiveka qaybteena labaad oo ama fariinteena labaad waxa weeyaan inaad kala saari karto ama inaad garan karto reactionska marka la kala jajabinayo in siyaabo fara badan lagu kala jajabiyo oo ay ka mid yihiin electrolysis ama fermentation ama cracking waa objectiveska ama ahdaafta cashirka aynu ka leenahay inaynu fahanno marka qaybtaasi muhiim maaha ardayo waxa cashirkeenu si toos ah uga bilaabi doonaa halkan oo ah chemical reactionsku muxuu yahay ayaabaynu ku bilaabaynaa chemical reactionsku waxa weeyaan waa nidaamka ay reactantku iskugu bedeli karaan productga isku bedelayaana waa mid ka duwan reactantkii ama halkii uu ka bilaabmay processku kaasa waxa la yiraahdaa chemical reaction waa is a process in which one or more reactant are converted to one or more different products wuxuu isku bedelayaa maxay different products sidoo uu ku bilaabmay maaha si cusub ayuu maxaa la yiraahdaa isku bedeli doonaa marka chemical reactionska kaasa la yiraahdaa tusaale ahaan waxa kamid ah marka ay dhacayso rusting of iron biruhu markay daxlayaan oo kale birtu markeeda hore ay biyuurka tahay ama ay saafiga tahay way adag tahay ama markaan raahdo malaha wax daxala laakiin marka ay resting ka noqoto waxay isku bedeshaa walax cusub oo ah red powder bay isku bedeshaa waxa kamid ah tusaale ahaan cuntada marka aynu cunayno ilaa ay inta lagu sameeynayo digestionka sidii aan ku bilownay cuntada ma ahaanayso way isbedelaysaa si looga helo tamar iyo heat ama maxaan raahdaa inuu jirku siyaabo kala duwan u isticmaali karo waxyaabaha kale ee chemical change-ka kamid ah waxa kamid ah respirationku marka uu dhacayo respirationka waxaad aad ugu dhigateen biology-ga waa habka cuntada loola soo baxo maxaan raahdaa tamarta ku jirta cuntada loo gubay loogu bedelo maxaan raahdaa energy iyadoo la isticmaalayo oxygen-tii laga soo qaadayay from the lungs ka bacdina capillaries-ku waa kuwii ka dhici jiray gas of exchange-ku capillaries-ka marka aan idhaahdo alveolada dushooda capillaries-ki baa ka qaadayay qaybtaas waa biology wadnaha lagu celinayo dhiiggii oxygenaysan oxygen-tii baa dadeedna uu wadnuhu sii bamgareynayay wuxuu gaarsiinayay all part of your body then glucose cellskaa ku keedsanayd marka oxygen-taa loo gaayo waxa ka dhasha waxa loo yaqaano energy marka chemical change-ka waxaynu kusoo khulaasaynaynaa inuu yahay isbedel dhaca isbedelkaas oo keena inay samaysanto new substances is formed walax cusub ayaabaa samaysmaysa walaxda cusub ee samaysantay totally way ka duwan tahay which is completely different properties from the original substances way ka duwan tahay original substances-kii uu ku bilaabmay reaction-kaagu so chemical reaction had iyo jeer markuu saasoo kala dhacdo waxaa la yidhahdaa chemical reaction ayaabaa dhacay haddaynu sii wadno qaybteena kale waxaan ku baranaynaa saynu hadda kusoo sheegnay noocyada reactionsku ay u dhacaan waxaa jira ugu yaraan 5 nooc oo maxaan raahdaa types of reactions ah oo kala ah tusaale ahaan number 1 waxa loo yaqaano combination of reactions waxa kamid ah decomposition of reactions waxa kaloo kamid ah displacement reactions waxa kaloo kamid ah double displacement reactions baa kamid ah waxa kaloo kamid ah oxidation and reduction reactions dhammaantood mid walba si waxaanu dul istaagi doonaa sidan ka faahfaahsan haddaynu ku bilowno combination
reactionska combination reactionisku sida kelmadda ka muuqata combination waxa weeyaan waa in laba shay la isku daro combination waa adding marka waxa la isku darayaa maxay reactant-kaagii baa la isku darayaa deedna wuxuu sameynayaa hal product ama wax ka badan marka haddaynu ku bilowno reactioniska ama aynu qeexno waxa loo yaqaano combination reactionisku waa reactioniska which two or more reactant combine waa maxaa la dhahdaa waa reactioniska hal ama wax ka badan oo reactantihi ay ku combine garoobaan si ay u sameeyaan maxaa la dhahdaa si ay u sameeyaan compound waxaa isla soo falgeli kara laba element oo sameynaya compound ma ahay waxaa isla soo falgeli kara laba compound si ay u sameeyaan compound kale oo saddexaad okay marka combination reactionisku waa marka laba element binary ama laba compound isku tagaan oo ay sameeyaan mid saddexaad ayaa waxa loo yaqaanaa combination reactions ama waxa loo yaqaano synthesis waxa la sameynayaa maxay laba shay oo la isku daray mid saddexaad ayaa la sameynayaa marka in general combination reaction can be represented by the chemical equation given here tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa equationka halkan yaala equationkaasi haddii la isku daro a iyo p waxay noqonayaan oo soo baxaya AP marka A iyo P ayaaba si simple u sameynaya combinationka way haddaan tusaale soo qaadano marka kaasi waa iska general when magnesium is spinning air marka magnesiumta ay ku gubanayso oxygenta magnesium oxide is formed waxa sameysma magnesium oxide ayaa sameysmaya this reaction magnesium is combined with an oxygen magnesium which is a metal and solid combines with an oxygen which is a gas then waxay produce gaynayaan magnesium oxide which is a solid marka magnesium iyo oxygentii markay combine garoobaan waxay sameynayaan maxaan idhaahdaa product ka duwan magnesiumtii iyo oxygentii oo ah magnesium oxide maxaan idhahdaa white powder ah oo solid sababta ay ugu duwan yihiin waa maxay kelidii wuxuu ahaa solid kana kelidii wuxuu ahaa gas laakiin productgii wax weeyaan wax labadiiba ka duwan oo ah white powder birtii iyo oxygentii waxay isku bedelayaan white powder okay example ka labaad waa haddaan soo qaadano laba element oo aad u taqaanaan waa carbon iyo oxygen carbonku waa solid oxygentuna statekeedu waa gas labada marka la isku daro waxa sameysmaya new product kaasina wuxuu noqonayaa carbon dioxide labada example ba waxay tusaale u yihiin combination reactionska marka elementyada la isku darayo ama compoundada la isku darayo aynu ka sii soconaa marka qaybta labaad waa decomposition reactions kelmadda decomposition macnaheedu waxa weeyaan breaking down in wixii la jajabiyo marka compoundkii ayaa waxaan filaynaa in la kala jajabiyo oo loo kala jajabiyo laba element iyo wax ka badan marka waxa weeyaan haddaynu qeexno are those in which a compound decomposes into two elements wuxuu kala jajabayaa maxay compoundkii two elements ayuu kala jabayaa ama wuxuu kala jabayaa or two compounds ama wuxuu kala jabayaa laba compound haddaynu halkaa tusaale soo qaadano sodium chloride haddaan rabno inaan kala jabino laba element boo kala jabi kartaa waa sodium iyo chlorine haddii aan rabno inaynu kala jabino tusaale ahaan calcium carbonate laba element ma kala jabta iyadu laba compound boo kala jabtaa calcium carbonate waxuu kala jabtaa calcium oxide iyo carbon dioxide marka compoundku markuu kala jabayo laba elementna uu kala jabi karaa laba compound buu kala jabi karaa and so on why and there is only one reactant and it breaks down into two or more similar products marka wuxuu ku bilaabmayaa inuu hal reactant ama hal shay uu kala jabo oo uu kala jabo into two or more markii horena combination wuxuu ahaa inuu laba element isla soo falgalaan kana hal compound kala jabay oo kala jabay laba iyo wax ka badan waxaad si fiican ugu fahmi doontaan general decomposition-ka example-ka halkan inoogu qoran example-kaasi imika kan waa general egg waa AP hal shay weeyaan marka ay kala jabto waxuu kala jabaysaa A iyo P marka wuxuu ku bilaabmayaa hal compound wuxuuna u kala jabayaa laba iyo
wax ka badan waay haddaynu ka sii gudubno waxaynu gelaynaa haddana waxa loo yaqaano decomposition intaynaan reactionska kale aynaan u gelin marka wax la kala jajabinayo siyaabo fara badan ayaaba wax loo kala jabiyaa marka decomposition marka la sameeyo waxa la yiraahdaa decomposition waa burburin waxyaabaha wax lagu burburiyo waxa kamid ah heating baa kamid ah in wax la kuleeliyo decomposition waxa weeyaan waxa dhici karta in wax lagu kala jabiyo dhowr siyaabood oo wax lagu kala jabiyo ayaaba jirta oo uu ka yahay maxaan lahdaa heating baa lagu kala jabiyo waxa loo yaqaanaa marka ka heatka lagu kala jabinayo thermal decomposition kelmadda thermal macnaheedu waxa weeyaan heat waa dhigateen physics-ka aad ugu dhigataan thermal expansion and contraction waa heat waxa weeyaan waa kala baxa markii shayadu kala baxayaan due to the heating ama due to the cooling and ka marka waxa la thermal decomposition waxa example u ah marka la kala jabinayo calcium carbonate waa tan waxa la isticmaalayaa heat ka bacdina waxa uu kala jabaysaa calcium oxide oo la yiraahdo quicklime iyo carbon dioxide taasi wax weeyaan waa word equation-ka chemical equation-ku waa kan oo waxa la yiraahdaa waa calcium carbonate heat baad isticmaalaysaa wuxuu kala jabayaa calcium oxide iyo carbon dioxide example-kaasi waxa kale tusaale fiican uu yahay in compound markuu kala jabo uu kala jabi karo laba compound oo kale oo aanu noqon karin laba elementna wuu jira laakiin laba compound uu kala jabi karo waayo decomposition reactionsku mararka qaarkood waxay wax ku kala jabin karaan light wax ku kala jabin karaan waxay wax ku kala jabin karaan light ama iftiinka wax kala jabin kara waxa ugu caansan kan loo yaqaano photochemical reactionska oo tusaale ahaan markuu dhacayo photosynthesisku waxay plants ka soo qaataan dhulka gudihiisa waterka carbon dioxide kana way soo absorb gareeyaan deedna sunlight baa ku dhaca sunlight kaasi wuxuu sababayaa inuu chemical reactionski uu dhici karo tusaale ahaan silver chloride oo kale markay laad ku dhaco waxa uu kala jabtaa silver iyo chlorine way inagu waqti ka faa'iideysanayna sidoo kale marka wax la kala jabinayo habka kale ee wax lagu kala jabinayo wax lagu kala jabin karo ama decomposition ku dhici karo waxa kamid ah iyadoo la isticmaalayo electricity way reactionska qaarkood waxa lagu kala jabin karaa iyadoo la isticmaalayo passing of electricity ilaa maxaan dhahdaa electricity la dhaxmariyo nidaamka marka electricity-ga marka wax lagu kala jabinayna waxa la dhahdaa chemistry-ga electrolysis baa la isticmaalay waana maxaan dhahdaa nidaamka ugu powerka badan marka wax la kala jabinayo oo la isticmaalo tusaalihiisa haddaynu soo qaadano waxa kamid tusaale ahaan lithium chloride haddaynu lithium chloride rabno inaynu kala jabino waxa la sameeyaa electricity baa la dhaxmarinayaa electricity marka la dhaxmariyo waxa uu kala jabaysaa lithium iyo chlorine marka compound-ka waxa lagu kala jabiyay electricity maadaama electricity wax lagu kala jabiyayna process-ka waxa loo bixin doonaa electrolysis way and habka kale ee decomposition u dhici karo waxa kamid ah waxa loo yaqaano cracking waxa aad u isticmaala organic chemistry-ga ayaa aad u isticmaala form 3 ku dhigan doontaan cracking wax kale maaha waa decomposition maxaanada burburin la kala jabinayo large moleculeski kuwaasoo waliba large moleculeskaasoo marka hore markay waaweyn yihiin waa less useful faa'iido badan ma laha laakiin waxay ka faa'iido badan yihiin marka loo kala jabiyo maxaan idhaahdaa marka loo kala jabiyo kuwa ka yar ayay ka faa'iido badanayaan waxa loo yaqaanaa cracking baa markaas oo kale leedahay waxa la yiraahdaa maxay cracking baa la yiraahdaa tusaale ahaan molecule-ka halkaad ku aragtaan waa family kamida family-ga alkane-ka loo yaqaano wuxuu ka kooban yahay 8 carbon iyo maxaan idhaahdaa 18 hydrogen markuu sidaa yahay waxa laga yaabaa inaanu faa'iido badan lahayn laakiin marka la kala loo kala jabiyo 6 carbon iyo 14 hydrogen oo molecule gaar ah iyo 2 carbon iyo 4 hydrogen oo gaar ah way ka faa'iido badnaanayaan isticmaalkooda marka haddaad 6da igu geyso maxaan idhaahdaa labadaa waxa noqonaya 14 ka kale haddaad u geyso afartaan waxa noqonayaan 18 marka molecule-kii weynaa un baa la kala jabiyay kaasina waa maxaan waxa loo yaqaanaa cracking oo organic aad ugu baran doontaan fermentation-ka ayaa ku xiga waa habisna waxa lagu kala jabiyo oo maynaan garin weli noocyadii kale laakiin nidaamka wax loo kala jabinayo iyo process-ku maynu sharaxnay fermentation-ku waa is a process that produce chemical changes isaguna waa nidaam
soo produce gareeya in lagu sameeyo chemical change gaar ahaan isna waxa loo isticmaalaa shayada organic ah marka la kala jajabinayo oo loo kala jabinayo maxaan raahdaa shaqadana waxa qabta oo wax kala jajabiya maxaan raahdaa action of enzymes hawsha waxa qabanaya through the action of enzymes ka qabta biology aad loo isticmaalo haddaan tusaaleediis iyo maalin walba isticmaashaan haddaad rabto inaad cake samayso waxa la soo qaataa baking baa la yiraahdaa lagu daraa baking isaga lama isticmaalo laakiin waxa loo isticmaalaa inuu reaction ka dedejiyo marka kaas oo kale maxaan raahdaa wuxuu soo galaa enzymeska marka laga hadlayo fermentation kuna waa nooc qaybtaas oo kale kamid ah khamiirin baa la yiraahdaa waxa la soo qaataa tusaale ahaan glucose marka la soo qaadanayo waxa lagu daraa yeast marka lagu daro waxa xogay ama waqti buu qaataa deedna pressure baa la saaraa waxa loogu talagalay processkan markuu dhacayo inayna oxygen saameyn ku yeelan anaerobic respiration oo kale ayuu eegyahay deedna wuxuu soo saaraa ethanol iyo carbon dioxide kaasina waxa la yiraahdaa fermentation waxaan rajaynayaa still inaad la socotaan haddii ay dhacdo marka qaarkood inaad fahmi weydo waxa laga yaabaa inaad dib ugu soo celiso marka waxaynu ku soo gabagabin doonaa slide-ka u dambeeya wuxuu ka hadlayaa displacement reaction isku wuxuu dhacaa waxa la yiraahdaa displacement reaction isku waxa weeyaan reaction in which atoms or ions move from one compound to another to form a compound called displacement reactions. Displacement reaction isku waa marka laba atom oo kala firfircooni ay maxaan raahdaa isku sameeyaan barabixin. Displacement reaction iska kaas ama waxa loo yaqaan magac kale leeyihiin waxa la yiraahdaa substitution reactions baa la yiraahdaa. Waxa kale oo la yiraahdaa waa single displacement waa la yiraahdaa waa marka laba atom oo kala reactivity badani ay isbarabixinayaan. Xiisadeena maanta halkaas aynu ku soo gabagabayn doonaa intaynaan gabagabin cashirka aynu maanta qaadanay guud ahaan wuxuu ka hadlayay types of chemical reactions noocyada loo qaybiyo iyo waxa kale aynu ka hadalnay oo ay kamid ahaayeen combination reactionska iyo sidoo kale kuwa loo yaqaano decomposition reactionska waxaynu aad u sii dhaxgalnay decompositionka marka la isticmaalayo in wax lagu sii kala jebin karo heatka ama lightka ama electricityga ama waxa loo yaqaano fermentationka ama crackingka intaasaynu ka hadalnay halkaas aynu maanta ku diin doonaa xiisadeena labaad halkaas aynu ka sii wadi doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh